biyaha ka qaybgalayaasha tababarkan aqoon kororsiga oo isugu jiray heer federaal iyo heer dawlad goboleed ayna soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo biyaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddo 8 maalmood ah ka socday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana ay qaadanayeen casharo la xiriira software loo adeegsado aaladaha saadaasha biyaha taas oo qayb ka qorshaha tayeynta adeegyada bulshada ay wado wasaaradda ujeedada tababarkan ayaa waxay ahayd inaan bal aynu xirfadda iyo aqoonta iyo heerka adeega saadaasha biyaha departmentiyada quseeya adeega saadaasha biyaha ee heer maamul goboleed iyo heer federaal inaynu kor u qaadno hadafka ugu weyn kana waxay si aan kor u qaadno in ay macnaha xog ururinta qaabka loo sameeyo markii noqoto adeega saadaasha biyaha sida cimilada roobka sida mataqaana cabirka biyaha sida mataqaana teknoolojiyada loo yaqaan geospatial waxa weeye waa teknoolojiyad cusub oo loo isticmaalo adigoo xafiiskaaga jooga aad ku ogaan kartid deegaan fog macnaha waxa ka socda haday tahay roobka ka daaya haday tahay socodka biyaha haday tahay haday noqoto mataqaana tayada biyaha xumaaday barnaamijkan waxa weyn waa modern technology weyn waa shay teknoolojiyada casriga ah ee cusub nooc software ee computerkaaga lagu shubayo ee network lagu xiriirinayo daatooyin iyo maaragtay iyo statistic iyo analyze lagu sameyn karo waxyaabaha marka kaasi ku saabsan biyaha haday naqan lahayd biyihii ground waterka haday naqan lahayd biyihii oo survey waterka yani biyihii ayaa waxaad ogaanaysaa quantity-gooda quality-gooda heerkooda siday u socdaan waxaasoo dhan waxa weeyaan waa geographigii lagu ogaan lahaa xildhibaan Maryan Macalin Mursal oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ku amaantay wasaaradda dadaalkeeda ku aadan horumarinta adeegyada bulshada wasaaraddiina waxa weey maanta waxaan uga jeedinay horumar weyn ku talaabsatay waa u madcelinaya wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka agaasimiyaalka waxaa xirfadlayaalka shaqaalaha kulli waa idin mahadcelinaya waxaan rabaa inaad halkaas si laba jibaartaan dhexda suuqa ku adkeysaan waxa weey adduunyadan waxa weey nolol waa biyo marwafuusiyo maxamed sheekh wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dawladda Soomaaliya oo soo xirtay tababarkan ayaa ballan qaaday in wasaaraddu ay sii wadi doonto dadaalada lagu tayeynayo adeegyada tamarta iyo biyaha ee dalka oo aad iyo aad aan maanta ugu faraxsanahay tababarka aad qaadateen in aad ka faa'iideen oo maanta markaad dib u laabatiin wasaaradda aad ku laabatiin oo tamarta iyo biyaha aad aga faa'iideyn doontiin hadduu Ilaahay yiraahdo shaqaalaha idinka dambeeyo iyo dadka u tagi doontiin in aad haddana tababarkan uusan ahayn tababarkii idinku horeeyay uu noqon doono tababaro badan aan uga faa'iideyn doono wasaaradaha dibna aan noogu soo laaban doontiin hadduu Ilaahay yiraahdo sidoo tababarada hadda uu bilowday inuu noqon doono tababaro oo joogto ah oo wasaaradda bixin doonto Ilaahayna waxa idin rajeynaa kuwa ka faa'iideen Allah idinka dhigo ugu dambeyntii waxa halkaasi shahaado lagu gudoonsiyay ka qaybgalayaasha seminaarkaasi Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho